cagsigeeda wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin riwaayadka qaarkoodna gabadhba kusoo arortay zaaniyada ama xun ayaa iyadoo haraadan kusoo baxday ceel biyood dabeetana way ku dhaadhacday way ka soo cabtay markay soo baxday ay waxay dabadda ugu timi ey ciidda cunayo haraad daraaddeed haraadan waasay tiri kan wixii ahayo kala haya dabeetana dib ba ugu noqotay khufkeedii muuqu waa bahladan khufka ee cagta la geliyo mid ka mid ay intay biyihii dartay afka ku soo qaadda dabeetana waxay soo kortay meeshii way ka soo baxday way waraabisay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uga mahadnaqay ficilkeeda ay samaysay oo dembigeedii dhaafay lacallaha qad taabat laakiin xadiisku sidaasuu tilmaamaya sidaa awgeed daa'iradaasaa loo samafaraya markay basharka dhaafto waxaa la yidhi waxaad u samafalaysaa maxay xayawaankii oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qof dumar ah ayaa naarta ku gashay bisad mukulaal bay qof dumari naar ku gashay dabeetana nebigu wuxuu yidhi way xidhay oo waxay cuntana may siinin manay sii daynin dhulkeeda dee u arsaaq tagtee markaa bisad bay toorjar garaysay halkaa bisa ay xidhay kuwa dadka qadinaya maxaad umalanaysa inta meesha ku xidhaa nafta isugu keenaya haddii bisaas la isku cadaabayo maxaan uga dan leenahay qofku ixsaanku markiisa koowaad si kastoo aad u ixsaan fasho shareecadu way ku dhawaaqday qur-aanka ku soo aroray waalid ixsaanfalkii jaar ixsaanfalkii qaraabo ixsaanfalkeed qur-aan badan baa ku soo aroray nusuus badan oo axaadiisa ku soo aroray in badan baa culammadu idinka warantaa laakiin waxaasoo dhami waxaynu leenahay waxay ka ratibmaan oo sida ugu fiican loo sameeyaa markuu qofku rabbigii ku xidhan yahay ee acmaashan uu qabanayo uu ka dhex arkaya rabbigii cidduu la macaamulaya ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu khalqiga u samafalayo xishooduu ilaahay ka xishoonayo cabsi uu cadaabkiisa ka baqayo aragti ilaahay uu mahad celinayo nicmada uu siiyey inuu uga abaalmariyo waxaasoo dhan ilaahay dartii buu u wadaa sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa wax waloo camalo aynu samayno towxiidkaa lagu ixsaan sameeyaa oo si fiican ilaahay loo qiraa nebigiisana si fiican loo raacaa loo weyneeya salaadaa lagu ixsaan sameeyaa oo si qurux badan le loo tukadaa oo ilaahay lagu xidhmaa soonkaa lagu ixsaan sameeyaa oo waatii lagu yidhaha dagaalamin kana samaynin waa lagu ixsaan sameeyaa maxaa la yidhaha xajkaa lagu ixsaan sameeyaa oo qofka xaja falam yarfuth walam yafsuq buu nebigu leeyahy aana afxumo iyo faasiqnimo midna ka soo bixinin xajkaa wuxuu ka soo noqdaa baa la yidhi ka yowmi waladatu ummu sidii maantii hooyadii dhashay isagoo dembi mulukkaa waxaasoo acmaali waxay sheegayaan inaynu ku samafallo waxa aynu samaynayno o dhan waxaan u malaynayaa waktigii salaadda waa gaadhi sida awgeed waxaynu leenahay qur-aanku alfaadaa tirada badan leh ku soo aroortay ee ixsaanka ka warramaysa dhammaantood waxa ay sheegayaan qofka muslimka ahi inuu samafalo cid walba uu samafalo shaqaalaha kuu shaqaynaya ha noqoto yani nebigu wuxuu tilmaamaya qofka shaqaalaha war dhididkiisu intaanu ingegin wixiisa siiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha meermeerinin ka weecweecinin hore wixiisa u sii qofka mu'minka ahi xaaraanta ka dhowrsigeeda ayuu ku samafalaya dawaataynu dhi wuxuu ka xishoonayaa waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka ahayn inuu sameeyaabuu ka xishoonaya sida awgeed ayuu wuxuu isku dayayaa wax walba ilaahay baa dayna le wadaruu ظaahira اlإثmi وbaطinah in aladiina yagsibuuna اlإثma sayujزawna bima kaanuu yaqtarifuun waxaan kusoo koobaya markaa cabsida ilaahay subxaanaه wa tacaala qofka hadday gasho rumaysto inuu ilaahay u arkayo waxa kale oo dhami way hagaagaan waxay culamaai taariikh wariyaan cumar bin اlkhadaab waktigii uu amiiru lmu'miniinka ahaa buu habeenkii intuu ninka haysto
ayuu wuxuu soo mari jiray xaafadaha iyo dadka oo wuxuu eegi jiray bal cid cabanaysa wax dhib oo jira kormeer. habeen buu soo socday dabeetana wuxuu maqlay xaafad inan iyo hooyadeeda wada hadlaya. islaanta waxay tidhi nacaanihii biyaa ma ku dartay? caanihii suuqa aroorta la geynayey ayay islaantu rabtaa in la badxo biyo lagu daro. markaasay inantii waxay tidhi hooye cumar baa mamnuucay oo yidhi lama ogola caanaha in biyo lagu daro. islaantii baa waxay tidhi ina amiiru lmuuminiina laa yaraaka laan laa yaraaki laan. amiiru lmuuminiinku dee hadda ku arki maayee tiri shaqada inoo qabo. amiiru lmuuminiinku hadda ina arki maayee shaqada qabo bay tidhi. inantii baa waxay tidhi ida kaana amiiru lmuuminiina laa yaraana faina rabu amiiru lmu'miniina yaraana. haddaan madaxweynuhu ina arkaynin amiirulmuuminiinka rabbigii baa ina arkaya bay tidhi. ilaahay baa ina arkaya. sidaa awgeed ma suurtagala bay tidhi inaan markuu amiirulmuuminiinku ama ilaahay marka dadku joogaanna inaan ateeco markaan keli u baxana inaan caasiya suurtagal maaha. marka dadku ay arkayaanna inaan ilaahay ka cabsado aanan caanaa badxin marka aan gaar u baxana inaan wax badxa suurtagal maaha. waxay yidhaahdaan cumar baa guriga albaabkiisii buu calaamadiyey dabeetana waraysi buu doonay. war reerkaasi waa kuwama? reerkii baa loo sheegay, inantii baa looga warramay. inantaa miyaa la qabaa? may. inamadiisiibu isugu yeadhay. dabeetana wuxuu ihi waryaadhe anigu nin weynoo da-aan oo hadda dumar warkood ma hadal hayo, laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inan ilaahay ka cabsanaysee warardoo taa guursada. inamadiisii mid ka mida baa guursaday. waxay idhahdaan waa cidduu ka tafiirmay bay dhahaan cumar bin cabdilcasiis amiirulmuuminiinkii cadaaladda badnaa ee iyaga ka dambeeyey. waa tafiirtii gabadhaa yar baa la idhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayey cumar ibn khataab. waxaynu uga dan leenahay haddii uu qofku ilaahay cabsidiisu ku waaweynaato oo uu cibaadadiisa ixsaan ula yimaado, cibaadadaasa waxay keensanaysaa inay xumaha kaloo dhan ka reebto. iyadaa keensanaysa. hadday salaadiisu dhab noqoto uu rabbigii habeenkii ku xidhmo. waxay idhahdaan markii wakhtiyadii hore nin baa ayaa qola saxaabi yidhahdaa ninka hebele habeenkiina salaaduu tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaadqaadaa. nebigoo maqlaya calayh salaatu wasalaam. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sidaa aad sheegaysaan hadday jirto ina salaatuhu satanhaaha buu nebigu yidhi. salaadiisaa ka reebi doonta. yacni war kale uma baahna. hadduu nin habeenkii intuu istaagan yahay oo rabbigii ku xidhma, dabeecada noocaasi ah inuu rabbigii ku xidhan yahay iyadaa samayn doonta buu nebigu leeyahy inay noloshiisa kantaroosho oo gacantiisa kantaroosho u qof dhowr soo noqdo. daba ayuha alxiba waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaan ilaahay ku xidhma. ku xidhnaantaynu ilaahay ku xidhanayna xidhnaan dhadhan samaynaysa aan ku xidhnaano. inay cibaadadaynu samaynayna noqoto cibaado macno samaynaysa. cibaado aad dareemayso rabu الsamaawaati wاlard biyadihi اlmulk wa huwa calaa kuli shayin qadiir inaad ku xidhantoo la hadlayso. maanta hadday wax yara ku qabsadaan dadku waxaa laga yaabaa inuu cararo markiiba ka fekero wartalow yaa igu dhowaanu tagaa saaxiib qaraabo tol ya waxaba albaab ka dhow baa jira haddaad barato. albaab haniya oo wax waliba agtiisa yaalinoo ka dhow baa jira. waa intaad habeenkii istaagta inaad rabbiga baridid oo tukatid. albaabka ilaahay baa ka basharka ka dhow. laakiin maadaama maadiyaadku inagu tiro bateen akhiiran waxaynu noqonay dad asbaabtuun ictimaado unoo sababtu ay u muuqato, laakiin rabu الsamaawaati walardi musabibu lasbaabka baanu inoo muuqanin. sababtaba ilaaha fudaydiya. idan haddaynu rabno noloshan adduun inay fududaato, dadka marka la yidhahdo cibaadaysto caynkan waxay ka fakeraan unoo is idhaahdaan dee aakhira loo jeedaa inay ku anfacdo. war aakhira uma jeedno, tan bay ku anfacaysaa. tan aynu joogno aynu rabnaa wixii hagaajin lahaa nolosheenna.
inay nolosheennan adduunyo shaqadeennu aqoonteennu cilmigeennu caafimaadkeennu tacliinteennu dadnimadeennu inay hagaagtaynu rabnaa waxaynu leenahay waxay ku hagaagaysaa markaynu xidhiidhkeennu ilaahay la leenahay uu qurux badnaado markaynu gaadhno xad ducadeenna rabbi aqbalo markaynu gaadhno xad waxaynu doonayno inuu ilaahay weydiisano xad aynu basharkaba ka maarmi karno